وكيل دمصو يعني تجراي كاب حارة مريت تجراي أنجسو ما برها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملك استوى شوكتان با مركلة أيان إذن لنا هيسود وهذا أخيارتا يا صاحب بدا هوذا نجلا سعودو دجالada faraha laga gubtay ee inda walaba ka socday waqooyiga dalka Itoobiya welina sii socda balse haatan sidii hore aan ahayn oo u badan kuwa dhinaca diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo waliba diyaaradaha iyagu iswada ay inta badan u isticmaalayaan ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa waxa ay u muuqdaan haatan sidaan horeyba u sheegnay in si weyn loogu kala qaybsamay oo labada dhinac ee iyagu awal hore xulafada aha waa dhinaca deegaanka Axmaarada oo la aaminsan yahay sharka iyo shidada ka aloosan waqooyiga dalka Itoobiya in ay iyagu hormuud u ahaayeen iyo dawladda dhexe ee dalka Itoobiya si weyn haatan in ay ugu kala qaybsameen ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa inta badan dagaalka haatan ay kula jiraan xoogaga Tigrayga waxa ay u badan yihiin amaba ay noqdeen kuwo aan difaac ay ku jiraan sidoo kalena iyagu noqday oo kaliya kuwo dhinaca cirka culayska saaray oo dawladda Itoobiya haatan ciidamada lugtu ma aha kuwo si toos ah iyagu weerar u qaadaya ciidamada cirka ayaa waxa ay yihiin kuwa dagaalada qaadaya kuwa mar walba hawlgallada fulinaya hawlgalladaasi ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka dalka Itoobiyana waa kuwo isdifaaca oo ay ciidamada militariga dalka Itoobiya marka la soo weeraro ay ka jawaabayaan inta badan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo waliba kuwa guuxooda ka dheereeya haddaba isaga oo ka hadlayay meel xaflada Marshal Burhanu Jula taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa waxa si ba'an u weeraray qoomiyadda Axmaarada maamulkeeda iyo waliba ciidamadeeda iyo dhammaanba qaybahooda kala duwan General ama Marshal Burhanu Jula ama Field Marshal Burhanu Jula waxa uu sheegay in dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya uusan ahayn mid la dhayalsan karo sidoo kalena uusan ahayn mid koox meel iska fadhida oo haba yaraatee aan waxba kala soconi ay kolba sida iyagu ay doonaan ay oga hadlaan isaga oo u soo jeediyay kuwa iyagu doonaya in ciidamadu ay guuleystaan oo ay wax walba baabi'iyaan inay iyagu dagaalka soo galaan oo haddii wax la baabi'inayo iyo haddii la guuleysanayaba ay guusha qayb ka noqdaan Marshal Burhanu Jula taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya oo daba socda dhaliilaha isdaba joogga ee ka soo yeeraya qoomiyadda Axmaarada iyo sidoo kale diidmadooda ay ku diidan yihiin in dagaalka la soo afjaro ayaa waxa uu si jees iyo waliba isla weyni ay ka muuqato uu u siiyay jawaab isaga oo yiri kuwa nagu dhaliilaya ama nagu eedaynaya in aan dagaalkii u soo raray gudaha deegaanka Axmaarada oo cadowgii oo dhanba aan dhex keennay deegaanka Axmaarada kadibna aan oga baxnay waxaan leeyahay haddaad idinku wax isku haysaan waa inaad jiida hore ee dagaalka tagtaan waa inaad dhulkiina xoreysataan waa inaad cadowga iska dhicisaan dagaalka ma waxaad moodaysaan sidii kubadda cagta oo kale oo ay laba ciyaartooy ama laba kooxood ay kolba dhinac isu eryanayaan meeshan dhiigga la iska cabayaa lafaha la iska dhuuxayaa wax la isu reebanayo ma jiro kumanaan ayaa naf baxaysa daqiiqad walba waxaa baxaya dhiigga iyo dhaqaalaha iyo dhacaankii Itoobiya sidaas daraaddeed kuwiina doonaya in wax la baabi'iyo noqda idinku kuwii wax baabi'in lahaa oo cadowga aad leedihiin waxaa loo soo roray deegaankanaga waa inaad idinku u istaagtaan sidii aad u cayrsan lahaydeen ee aad u baabi'in lahaydeen haddii kale waxaan u aragnaa
inaad tihiin kuwa wax matarayaala oo keliya doonaya in loo dhinto iyaga difaacooda ma jirto cid difaacaysa waxaa laydinka doonayaa haddaad u aragtaan in dagaalkii laydiin soo raray oo deegaankiinni la keenay dee ordayoo iska dhiciya oo kuwa dagaalka idiin soo raray iyo kuwa dagaalka soo raray labadaba iska celiya laakiin wixii intaasi ka baxsan waxaan u aragnaa in aad doonaysaan waxaan haba yaraate ee suuragelaynin marshal burhanu jula taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Itoobiya oo ka hadlaya xaflad abaalmarino lagu guddoonsiinayay qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada militariga dalka Itoobiya ayaa hadalkaasi jeediyay waxaana hadalkani uu daba socdaa qayladhaanta sawaxanka iyo weliba baroorta isdaba joogga ee maalmihii la soo dhaafay oo dhanba ay qoomiyadda axmaaradu warbaahinta marinaysay iyaga oo ku doodaya in ciidamadii cadowga Tigreega loo soo raray deegaanka Tigreega aan idhaahdee deegaanka axmaarada kadibna dowladdu ay faraha ka qaaday haatana iyaga iyo Tigreega loo kala dhexbaxay waxaana ay sheegeen arrintaasi inay tahay khayaano iyo weliba dhagar weyn oo laga galay dadka iyo dalka Itoobiya waa sida iyagu ay aaminsan yihiin balse waxaad moodaa in ay moog yihiin inay iyagu ahaayeen kuwii balada iyo baaska Itoobiya ka aloosanna iyagu hormuudka u ahaa afuufay meesha xaaladdu hadda ay joogtana soo gaarsiiyey iyaga ayaa shalayto faanayay iyaga ayaa mar walba ku goodinayay in ay wax burburinayaan wax baabi'inayaan haatanna iyagii ayaa calacalaya dhinaca kale madaxa howlgallada waqooyiga dalka Itoobiya General Bacha Dabbale oo isaguna dhinaciisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in kooxaha doonaya in dagaalka dalka Itoobiya kaga socdo gudaha iyo dibadda ay yihiin kuwa waalan oo kale balse haatan la gaadhay xilligii dhinacyo badan lagu daylaha waxa uu yiri General Bacha Dabbale oo ka mid ahaa saraakiisha ugu cadcad ee iyagu inta badan u heelanaan jiray dhinaca dagaalka ka socda dalka Itoobiya gudihiisa iyo weliba kan dibadda lagaga soo qaadayo ma aha mid aan xoog ku xallin karo xalku ma aha oo keliya xabadda waxaa la adeegsan doonaa nidaamka diblomaasiga iyo wada hadallada miiska dushiisa sidaas daraaddeed cid kaste oo doonaysay in arrinta lagu dhameeyo dagaal waxaan leenahay waqtigaasi waa la soo dhaafay ee ninkii dagaal doonayo adigu cidi kaama hortaagna ee tag goobaha dagaalka oo soo dagaalan waa labada sargaal ee ugu sarreysa ciidamada difaaca dalka Itoobiya kuwa iyagu ka hadlay munaasabadda abaalmarina lagu siinayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga dalka Itoobiya oo sheegay in uu soo xidhmay albaabkii dagaalka iyo balaayada iyo baaska ee Itoobiya ka holcaya oo ay sheegeen haatan in lagu bedelayo wada hadallo iyo in miiska dushiisa wax lagu dhameeyo arrintani ayaa waxa ay tahay mid dhabarjab ku ah dharbaaxa weyn ku ah gebi ahaanba hogaaminta kala duwan ee deegaanka axmaarada sida aynu wada ogsoonahay kadib markii la sii daayay qaar ka mid ah saraakiishii kala duwanaa ee qoomiyadaha Tigreega iyo Oromada axmaaradu qayladhaan ayay afka furatay waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay tahay khayaano qaran oo loo maleegay qoomiyadda axmaarada iyo guud ahaanba dalka iyo dadka Itoobiya lana doonayo in dhammaanba dambiilayaasha dib loogu celiyo xabsiga kuwa sii daayayna lala xisaabtamo oo lala xidho arrintaasina waxa ay muujisay mowqifka ay taagan yihiin qoomiyadda axmaarada iyo sida haatanna ay tala farahooda uga baxday booqasho ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Baxardaar waxa iyadana labada dhinac ay si weyn uga wada hadleen isbedelada dhinaca siyaasadda iyo militariga ah ee dalka Itoobiya haatan ka soo ifbaxaya wada tashiga qaran iyo weliba inaanay sii socon doonin xabadda loona baahan yahay axmaaro hadday iyadu dagaalamaysana in ay dagaalanto oo ay Tigray iska celiso balse aanay jirin cid dambe oo u dhimanaysa ama difaacaysa haddii ay diyaar u tahayna ay ka soo baxdo dhammaanba gobolka Walqayt ee deegaanka Tigreega ayna iska xaadiriso goobta wada hadalka ee shirka wada tashiga qaranka halkaasi markay wax marayaan kadib ciidamada militariga dalka Itoobiya waxa ay bilaabeen inay hubka dhigis ku sameeyaan
dhammaanba maleeshiyaadka iskoodu abaabulan iyo jabhadaha deegaanka axmaarada ka jira waa maamulka keliya ee jabhado iskood iyagu u dhisan oo hubaysan oo beebeeyo wata oo xitaa taangiyo wata meesha ay ka jirto waa deegaanka axmaarada waxa aanu xog rasmiya ku helay in hubka dhigis lagu bilaabay dhammaanba maleeshiyaadka kala duwan ee deegaanka axmaarada arrintaasi maamulka deegaanka axmaaradu waa ka cadhooday sidoo kalena ciidamada maamulka gaarka ah ama ciidamada gaarka ah ee maamulka deegaanka axmaaradu iyaguna waa ka cadhoodeen jabhadihiina qaar hubkaa laga dhigay dhammaan gobolka wallo ciidamadii aan ahayn kuwa deegaanka axmaarada iyo kuwa militariga ee rasmiga ah ciidamada militariga Ethiopia waxay ku bilaabeen hubka dhigis ku dhawaad 10,000 oo maleeshiyaad oo isugu jira jabhadda Fano kuwa loo yaqaano macawisleyda ama xagga laga dhaho baalashirdaamka iyo weliba maleeshiyaadka kale ee iskood u abaabulan ayaa dhammaantoodba hubka dhigistu ay ku socotaa kuwa badanna hubka laga dhigay haatanna labadii generaal ee ugu sareysay ciidamada dalka Ethiopia waa Marshal ama Field Marshal Burhanu Jula iyo General Baja Dabbale ayaa labaduba waxa cod dheer ay ku sheegeen in la dhameeyay ama la gaaray xilligii dagaalku uu soo dhamaan lahaa haatanna aysan xaaladu ahayn xilligii la iska yaacayay ee dagaalka la gelayay waxaana Burhanu Jula waa Field Marshalka ugu sareeyay ciidamada dalka Ethiopia ee uu axmaarada xasuusiyay meesha inaanay ciyaaru oolin oo aan banooni la isku eriyanaynin balse ay tahay meesha meel lagu dhimanayo xagga dhimashadana haatan la doonayo kuwa guul daraystay ee weli doonaya in dagaalku uu sii socdo inay goobaha dagaalka iska xaadiriyaan oo iyagu ay bedelaan ciidamada kala duwan ee ay ku tilmaamayaan kuwa fulaye ah oo khayaamay oo dagaalkii u soo raray deegaanka axmaarada halka marshalka halka sidoo kalena Baja Dabbale isna isaga oo daba socda hadalkaasi uu sheegay in la gaaray xilligii wada hadalka lagu xalin lahaa dhammaanba marxaladda colaadeed ee dalka Ethiopia ka aloosan akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo aad joogtaan ba haddii bal saaxiibada haatan nagu soo biiray aan u dulmaro nuxurka warbixintani Field Marshalka ugu sareeyay ciidamada difaaca dalka Ethiopia waa Burhanu Jula oo ka hadlayay munaasabadda abaalmarin lagu guddoonsiinayay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga dalka Ethiopia wa abaalmarintan ayaa waxa loogu magac daray abaalmarinta guushi Adwa oo la siiyo geesiyaasha ayaa waxa uu sheegay in kuwa iyagu ku eedeynaya ciidamada militariga dalka Ethiopia inay dagaalkii u soo rareen deegaanka axmaarada inay iyagu iska xaadiriyaan goobaha dagaalka oo ay dhulkooda deegaankooda iyo dadkooda difaacdaan waxa uu sheegay waxa ay moodayaan dagaalku inuusan ahayn taasi oo ah inay dagaalkaba u haystaan ama ay u malaynayaan sidii laba kooxood oo dhinaca kubadda cagta ah oo balooni isku eriyanaya balse waxa uu xasuusiyay in goobtu ay tahay ama furimaha dagaalku ay yihiin meel dhiigga uu qulqulayo oo kii hadda naftu ay ku jirtay ee noolaa isagoo ordaya ay naftu ka boodayso kadib marka beerka lagala baxo sidaas daraadeedna waa la soo dhaafay ayuu yiri xilligii loo dhiman jiray koox gaara ama maamul gaara ama qoomiyad gaara ee kuwii iyagu isdifaacayo jiida hore ee dagaalka iska xaadiriya idinku isu dhinta idinku isdifaaca annagu haddii aanu idin khayaanay oo aanu ciidankii Tigreega u soo raray deegaanka Tigreega war meesha waa la dhimanayaa meesha lagu dhimanaya aada Tigreegu dhimashay diyaar u yihiin intii naga dhiman kartay waa naga dhimatay intaan ka dili karray waan ka dilay isku baaba'nay wax guulana maana kala gaadhin ilaahow yaa naga hayaan taagannahay ee idinku haddii aad xoogaa dihintihiin orda iska dhacsha nimanka muhiimaddu waa intaasa waxaana sii xoojiyey abaanduulaha ama howlgaliyaha guud ee waqooyiga Ethiopia howlgalladii military ee ka socday General Baja Dabbale oo isaguna dhinaciisa sheegay in xabadi ay xal noqon weyday xalkuna haatan uu noqon doona meeska dushiisa nuxurka warbixintu intaasi ayuu ahaa tan iyo intaan isugu imaanayno wararka iyo warbixinada xiga waa galada